بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. qaybtaasna halkaas uga haray horeeto caawa idiin soo sheegay. Waxa igu xigi doona qayb aan ugu talagalay ana dheerayn doonin, laakiin aan rabo step by step maxaa samayn kartaa haddaa waalid tahay saa ilmaha qur-aanka u bartay inaan kuu sheego. waa su-aal mar walba taagan ay dhahaan si ugu sahlan oo ilmaha qur-aanka u baraa. Okay, laba shay baan ka soo qaadayaa. waxaan ku dhahaa waalidka noocaasa see rabtaa, ma waxaa rabtaa ilmo qur-aanka kuu bartay sidii caadada ahaan jiray dhaqaajiyey, mise waxaa rabtaa ilmo qur-aanka bartoo jecel intuu raba ha hayo, intuu raba ka fakato, intuu raba ku qaato inuu dhammeeyo. kow, qofka bini aadanka wuxuusan aqoon haddii loo diro uu ku dhibaatooda. therefore sidaa daradeed waxaan dhahnaa ha la baro waxa aasaasiga ah oo ay tahay inuu isticmaalo. qofka wax dhisayaay wuxuu u baahan yahay baangadii iyo badeelkii iyo ku qasi lahaa iyo ku salaaxi lahaa, iyo hadduusa haysan waxa ma samayn karo. qofka xisaabta baranaya waa inuu wato 1 2 3 4 5 6 7 10 yaqaanaa, 1 ilaa 10 waa inuu garanaya. kabacdina waa in la baraa halaha lagu dara 2 bay noqotaa, 2 3 lagu dara 5 bay noqotaa, hadhowta lagu dhiftay la baro. sida loo wada waxaa la gaarsiinayaa heer uu xisaabta ka shaqayn karo. haye haddaa ingiriisi soo laabatid a b c baa la baraa ilaa ya u dambis loo gaarsiiyo. kabacdina waxaa la baraa waxa leeyahay waxaa loo kala qaadaa haddii la ku leeyahay vowels consonant lateral kala baraa iyo xarakaadkii loo isticmaalaya wixii. haye kabacdina akhriyo gaaraa. annagu waxaasaa lahaanka alle macallin baa ahay, ilmaha la ii keenaya alif ba ta ama alif la kor dhabay loos baa u dhigayaa, bani qur-aanka ma bilaabaya. saada markuu soo gaarana mad madow alla ku yaqaan ma kicin karaba. wariyaa qur-aanka aad macallinka gow wariyaa akhri garan waaye hoos soo celi. intaasu wuxuu ku gaarayaa 10 jir. inta dhegta la maroojinayaa, waa la sii jiidayaa, waa la soo jiidayaa, waa xanuunsanaya, waa qaylinaya. wuxuu leeyahay alla markaa saara marya kaa saara. waxaan dhahnaa ilmaha Soomaaliyeed waxay ku fakaraan hadduu qaan gaari lahaa, hadduu Europe iyo North America nool yahay mar haddaa qaan gaari lahaa, markaasaa waxaa la yidhahdaa maxaa samayn lahayd. markaasuu yidhaha waxay saaxiibada sameeyeen samayn lahaa. waa maxay sameeyeen? saaxiibada gurigana waa ka tageen, balaayo ka taagan tahay oo inta dhegta la yaqato macalinka shaydaan la ii geynayo, qur-aankaas lagu dhibo aan gara waayaan waa ka tagi lahaa. marka intuusan cunuga u tamanin ku fakarinin inuu ka cararo madrasada, hadda ka fakar. kow maxaa samaynaysaa? macalinka ha ahaata ama aduu bilowe horta ilmaha hikaayad nadiifa bar, ka dharji inuu aqrin karo. qoritaankiisu ha gabadgabadeed u rabo waa muhiim qoritaan, laakiin waxaa la dhahaa akhrinta iyo qorista akhrinta horeysa. qof markuu wax akhrin karo qori karaa. kow horta inuu wax akhrin karo waxna qori karo ku dadaal ayuu akhrinta horeysa wax saxan ay noqdaan. maadaama qur-aan u soconno waa inuu noqdaa buugga qur-aanka laga barayo buugga qur-aanka la jaan qaadaya. laakiin haddaa batid jaahilis tale faransiisna akhri suuragal ma aha. hadda idin sheegayaa buugta hikaayadda laga barta badankoodu waxay ula dhigmaan qof jaahilis la baro faransiis laga rabo. macnaha qur-aanka lama jaan qaadayaan. qur-aanku dariiqad loo qoro uu leeyahay una u qoran yahay. waxaan isku raacsannahay haddii hal xaraf ingiliish kaa qalday inaad akhrin karinin, haddii hal lambar kaa maqan yahay xisaabta inaad saxa akhrin karinin, laakiin aad iska kickicinayso qiyaasayso gabadgabadaynayso. qur-aanka akhrina annaga xataa waa gabadgabadin jirnay, ilaa haddana kuwa noo joogaan gabadgabadeeya, laakiin wax badan ma saxnay alxamdulilah. ilaa hadda in la saxaa loo baahan yahay. kow ilmaha marka wax sax bararto usuda hikaayadda inuu saxdo. lambar 2 suusa beri uga caran dhibaata u dhicinin macallinka wax ku tala macallin ilmaha in qur-aanka baan u rabaa dil uma rabo. dilka ha u mooyane kale midka bashta ah waxaa ka mid a moral ahaan doqon yahow, wax mataray yahow, dhegta laga maroojiyo, indhaha loo gadudusho, ayaa loogu diraya, walahi war uu xiray. waxaas dhan dil ah. marka cunug macallin ilmaha ku qosliyo habiya raadso aad tirahdaa ilmuhu ku qayliyaa mid xooga degan. maxaa dhacay? cunuga maanta beri waa ninka weyn, wax alla waxa maanta khusubta madaxa ku haynaya. iskuul baa geysay islaam qasridaa jirta dhahaysa well done excellent baa tahay. macallin quraan baa uga soo dhahaya doqon yahow, wuu kombeer garaynayaa. wuxuu leeyahay diinta islaamka waa yaryahay hadduu soo koray Yurub ku dhashay. wuxuu leeyahay wallahi gaalada muslim ka fiican, muslim gaalada ka fiican, waa ka naxariis badan yihiin anay u dhaheen. marka balaayaas yaana dhaxline macallimiinta indhaha loo fiiqo xoogaa la yiraahdo joojiyeena iyo doqomaad yihiin xoogaa isbedela. hadduu kaa diidana macallinka waxbaa ku qaylin, ha cayn, ha la diririn, mid kale raasoo xoogaa indhuhu fiiqan yihiin. macallimiinta hadda Yurub iyo America joogta ay kulligood damba wada ahaa, kulligood damba wada fiicna, waa la kala duwan yahay.
marka haddii kan kaa diido mid kale taraaso waliba adoon dagaal iyo qajac galan tartiib waxtada waa guuri ama waa leexday ama cunuga meegta geysay khalaas because cid ay ku soo laabanayaan ilmuhu haddii xumaadaan day ficnada waa adiga waalidkaagaan wey haddaan taan ilma kaanto arto inaan indhaha saa u waaweyn yihiin cunuga aan qanjarufanayo waa tirahdaa macalin xoogaa cid waa mashquulshay dheh meel kala geyso dhibaato ma laha marka adaa dantu haysaay kow ilmaha inay kaa saxa bartaan ku dadaal aduguna iska bilowta aduu baro xataa daadu aqoonin ilmaha ku ciqaabaysa ilmaha kaa saxa bar macalin qabow u gee number 3 weliga ayaa allah ilmaha quraanka soo socelin ilmaha North America Europe ku nool see ilmaha quraanka saxan u bara see quraanka ugu sahlan waxa ugu sahlan ilmaha soo celin amu gaaray birabanaas ma yaqaan wasiiru ha soo cel korwad birabanaas hal uu sameeynaya maanta soo baras sagare hoos soo dhageysade macalinka waxa tirada mamar u meeride ha iska socdo maanta baqara gaaro birabanaas waa yaqaan khalaas quraanka soo mid number 4 waliga allah ilmaha quraanka dusha ka barin sar marka u horeysa horjeedka wala yaab doonta quraanka ayaa dusha laga barin baa la yiri waa waxaan soo tajribaynay ilmaha horjeedka ah quraanka dusha ka barin waliga allah 4 ilaa dhaxlaysa hadii kale 4 taaga tirsacaw kow horta inuu quraanka dusha ka xiftay dib badan ka maraya oo ku dhibtoonaya shambru iskuul aada tuushin baraya geysa guriga game yaala television fiirsada time yar buu haysaa time-kii sargal la rafanaya marka quraanka dusha ka baran tagaya oo ku dhibtoonaya ha ku dhibtooday uu soo bartay kow laakiin bari ma yaqaan wax ilmaamay dhibida marka wixii aan ku soo rafaaday ku soo tacabtay cunuga ku dishay waqti uga qaaday ku ciqaabtay bari maanta quraanka bax bari ma yaqaano taas meel igu qoraniga number 2 maadaama wax aan ku dhibto waa nacaysa quraanku nacaya wuu karaasanaya ya dhibu leeh number 3 muddo dheer bay ku qaadanaysaa marka wax koow aan dhahay wuu ku dhibtoonaya number 2 hadii la kuran yahay wuu nacaya number 3 wuu hilmaami doona 4 ay gaartay inuu muddo dheer ku qaatay quraankii ilaa waxan waa hal buug wax kasta oo ay dhamaadaan waxay dhahaan daasa maanta inta qaato laakiin jeeni safar uu dhamaada ma dhamaanaya 20 sano quraanka dhex fadhiya wala sii wada wala soo marka intay ku dhici lahayd inuu waqtiga ku dheeraado soona hilmaamo quraanka la naco maxaa ka sahlan halka arta Soomaan halka waxay tahay quraanka kitaab ka bar macallin wuxuu tiraahdaa cunugaygu quraanka kitaabka uga baxo maanta dhameeyo waxa loo yaqaan horjeed Soomaaliya hatta wala aqoon jiray quraanka horjeedta gab han jiray naqdiinka la xidin jiray Soomaa marka waxa tira cunugaygu quraanka kitaabka uga baxo markuu naqdiimayana dusha uga baxo markaas asaga hikaad dhan wada yaqaana quraanka isoo mid yahay kitaabka akhrin kara baa wax leenahay magaciisa duu ah Maxamed maanta laga bilaan macallin Maxamed baa too xaflad baa loo dhigaya maanta baqara gaaro hablaha dirka loo sheegay wax wiilka quraanka dhameeyay ama quraanka dhameeyay asaga waxa leeyahay ma sha Allah tagteeda qatar bata quraanka dhameeyay ilaali kitaab yar loo bilaabi doonaa quraanka dhameeyay kitaab oo bilowna anagu culimada macallin dhahaasay samalo u yahay ilaa ilmihi waa inuu meesha dhaafay mugto quraanka lahayn laga ma tago mar baa dhahnaa naqdiin baa jira lagu soo celshaa oo lagu suuciyaa ilmaha quraanka kitaab ka barta markay dhameeyaan waxay diyaar u yihiin inay asbuuci soo diyaari karaan xisib dhan jus barkiis ila quraanka kitaab ku yaqaana oo akhrin kara kulli marka ma baa lagu dhibay wax leeyahay soo jiri doona asbuucan soo diyaari jus amma gaw soo akhrina soo yaqaanu keenaya asbuuc ku waxaan leenahay tabaar soo diyaari waa loo subcinayaa quraan ka bax iyo cashar baa laga rabaa iyo ma la dhahayaba waa la khiyaanay laga wareejinaya laakiin heerkaas maxaa lagu gaari karaa waxa ku gaari kartaa inaad si tartiib oo degan oo naxariisa oo quraanka jecel yahay laakiin hadaa inta gareeysid anka goosatid garaacdid quraanka jeclaamayo ma rabi doono macallinka dugsiga waa nici doona hooyo abi u geeyana wuxuu arki doona qof dad cadow gacmaha u qabtay marka soo cadow kugu arkinin macallinkaas baa lagu arkin quraankana balaa u arkin lagu qasbayo dariiqada sahlan mar hikaada bar macallin sahlan u gee quraanka horjeedka markuu dusha yaan laga barin yaana wali hoos loo celin uu soo hilmay ku soo celi amma igu celi macallin cusub aanta u geysay birabna soo bilaabay bilka bacdi cid waa guurtay marka loo guur macallin kale u geysay uu soo bilaabay hadaa 10 jeer guurto waliga waxa bartu joog hore hoos u celin ilmaha hadaa hoos u celiso niyada ka jabaysa hadana niyada ka jabaysa mar saddexaadka dhagaxa uu noqonaya ama dusoo ka cararaya ama soo dhex fadhi doona saas ah ama waxa baranaynin intaas aynu ahaan doontaa waxa ku xigi doona tajriibooyin kale oo ku saabsan si quraan loo bartaa xanaaq iska bixida macallin tahay iyo waalid baa xidid xanaaq faktiskaasi waa fiicnaan doontaa insha Allah wabillahi tawfiiq